shan nicmadood intaad haysatid shan intaysan kuugu iman uga faa'iidaysa buu nabi maxamed ku leeyahay dhallinyarnimadaada ka faa'iidaysa intaad dhallinyarada tahay waayo gabow baa kugu soo socda intaad caafimaadka haysa ka faa'iidayso waayo xanuun baa daba socdo gadaashiisa iman doona caafimaad waxaad firaaqa ka faa'iidaysa gacan bannaanida waxaa iman doonta xilli aad noqon doonta mashquulku waa maxay meherad baad yeelan kartaa reer baad yeelanaysaa ilmaa imanaya ilmihii baa bukoonaya iskool buu u baahan yahay dhakhtar buu u baahanaya maskiidkuu u baahanaya tacliim buu u baahanaya dhar buu u baahanaya daawuu u baahanaya laakiin markaad dhallinyarada bannaantay ogow marka intaad firaaqa haysato ka faa'iidaysa intaanad mashquulin intaad caafimaadka haysatidna uga faa'iidaysa intuu xanuunku kugu dhicin intaad haniga tahay hanigu waa ayo amni baad haysataa amnigu waa nicmad caafimaad baad haysataa caafimaadku waa nicmad quuta alyowm baad haysataa quuta alyowmku waa nicmad lixaadkii baa kuu dhammaystiran lixaadku waa nicmad intaad haniga tahay deeqtoon tahay ee weli baahidu ayna kugu badanin ee baahidaadu ay xadidan tahay baa lagu leeyahay hinadaada ka faa'iidayso ilaahay la baayac mushtare tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifuka fi shidda barwaaqada intaad hayso ilaahay garo maalintay dhibaato adigana kula soo daristo ayuu ilaahay adigana kuu soo gurman doonaaye barwaaqada amnigu waa barwaaqo caafimaadku waa barwaaqo hinadu waa barwaaqo sixadu waa barwaaqo dhallinyarnimadu waa barwaaqo islaamnimadu waa barwaaqo masaajidaad haysateed ku tukanaysid ee culammadu maanta mar walba ka qaylayaan waa barwaaqo tijaaradda xalaashaad haysato waa barwaaqo barwaaqada intaad haysato ilaahay garo oo xidhiidh fiican ilaahay la yeelo maalintay dhibaata adigana kula soo daristo ilaahay adigana kuu soo gurman doonaa sidii ninkii reer bani israa'iil ahaayee la odhan jiray jurayj caabid reer bani israa'iila buu ahaa caabid reer bani israa'iila buu ahaa cubaadda reer bani israa'iil markay damcaan ilaahay inay u dhowaadaan mujtamaca way ka dhexbaxayeen ruhbaan bay noqonayeen ruhbaaniya buuraha dusheeday degayeen soomicad bay dhisanayeen cariish halkaabuu ilaahay kula munaajoonayey deedna halkaabuu ilaahay cilaaqo fiican ula yeelanayey isagoo salaad ku jira ayay hooyadii u timiday baa la yidhi markaabay ku tiri yaa jurayj markaasuu dareemay sawdkaas inuu yahay sawdkii hooyadii inuu yahay markaasuu yidhi yaa rabbi ma salaadaa fadli badan mise hooyada inaan ajiibo oqoontiisa ayaa yarayd waayo caabid buu haya caalim ma ahayn baa la yidhi caabidka iyo faqiiha farqi baa u dhexeeya daadna markaa buu yidhi salaadaa ka fadli badana salaadaada iska wado way raagsatay way iska noqotay maalin dambey ku soo noqotay yaa jurayj markaasuu hadalkeygii gartay haddana salaaddii buu iska watay way ka noqotay maalin saddexaad buu u soo noqotay yaa jurayj haddana way ka noqotay waa caalim mahayna waa caabid waajib iyo sunnaha ma kala garanayo salaaduu ku jira waa sunno weeyaan waalidka in la ajiibana waa waajib weeyaan an ishkur lii waliwaalidayka ilaahay baa kugu leh anigana ii mahadnaq labadaada waalidna u mahadnaq ilaahay ridihiisu ridaha labada waalid buu ku xidhan yahay biru aabaa'akum taburu abnaa'akum baa nebigu yidhi labada waalid u samafala kuwaad ininkuna aad dashaan baa inii samafali doonee buu rasuulku yidhi salaada sunnada iyo baaqa waalidka inuu ajiibo yahay liqilati cilmihi ayuu yidhi salaadaa ka khayr badan salaaddii buu iska watay way ka noqoto habaar bay dusha ka saarto waxay tidhi ilaahow inankayga ha iga dilin adoo naagaha xunxun ka horkeenoo ku fidnaya mooyaane habaar waalidna hoostaa ma dhaafay tiraa soomaalidu reer bani israa'iil baa maalin way isweydiiyeen ninkii jurayj ahaa ummadiiba uu ka dhex baxayo halkaasuu ilaahay ku caabudaayo weli ilaahay buu noqdayo tacalluq buu ilaahay la yeeshayo naagaha xunxun ee jidhka uga gadaahayd ayaad timidoo ku tiri anuu haddaan u dhaqaaqo wadaadkaas waa fidnayn oo diintiisa waan ka kala daadin iyo ma kartid iyo waad arki doontaan bannaankii bay ugu timidee buur dusheeday ugu timidee keligii si walba way isku hordhigtay baa la yidhi waxay leedahay bal ha ku damco markaabay ku leedahay jurayjo waa labadeennoo keliye kaale waxaan doona han samayno han ciyaarne walaakiin jurayj
imtixaan hooyo unbaa ku yar dhacay mooyaane qalbigiisa waxaa ka buuxda ilaahay cadamadiisa iyo ilaahay cabsidiisa. taqwadu waa cajiib. taqwada allah ina siiyo. gaadhiga maxaa qabta? gaadhiga bareegaa qabta soo maha. hadduu bilaa bareeg noqdo ka warrama, meel walba uu jiidhi. dad badan oo muslimiina maxay macsiyada ugu dhacayaan? laanna taqwadoodiiba yaa noqoto daciif. iimaankay culammadu iyay ka baxayaan sharax cajiiba. waxay dhahdeen xadhigga laydhka kooraanka laydhka waa laba silig weeyaan, waa laba siligoo xaasow. midna waa muujib, midna waa saalib, waa positive iyo negative. iimaanka markay culammadu ay sharxeen waxay yidhaahdeen waa yaqiin iyo taqwad. yaqiin waxaa la yidhaahdaa waa waxa taacadda ilaahay kuu kicinaya, yaqiin la yidhaahdaa. macruufka wanaagyada ilaahay ku faray waxa kugu istaajinaya waa yaqiinta weeyaan. macaasidana waxa kaa qabanaya waa taqwadda weeyaan. marka gaariga waxa joojiyey qabtaa waa maxay? waa bariiga fareemka soo maha. hadduu bilaa fareem noqdo ka warrama, dukaankanuu jiidhi war naga qabo, gaariga waa bilaa fareem. aqalkanuu jiidhi war naga qabo, gaariga waa bilaa fareem. maanta ummaddu maxaan macsiyadda ugu dhacaynaa? xaa beenta in la sheega dhaqan u noqotay? maxay dhallinyaradu zinada ugu dhacayaan? maxay dadku isku xamanayaan? maxay dadku isku caayayaan? muxuu ilmuhu labadiisa waalid caaq ugu noqday? maxaa dadku khiyaanada iyo qishka ugu baayac mushtaraynayaan? isagoo arkaya waxaanuu samaynaya inuu sharcigu ogolayn ayuu haddana ku dhacaya qofkii. laanna gaadhiga waa bilaa fareem, meel kasta u galaya markaas. idan ninkan Jurayj habaar waalidunbaa ku dhacay mooyaane, laakiin alla ka cabsi baa qalbigiisa ku jira. meel cidlo cada isagoo jooga oy gabadh ugu timiday ku leedahay kaale ha waxaan doonaa isku samayne ayuu leeyahay may anu ilaahay baa ka baqayanaya, ilaahay bay arkayo i maqlaya. kolkay ka quus beeshay nin adhi la joogay u tagto kiibaa ku dhacay. ilma ayaa caloosheedii galay. ilmihii bay dhashay magaalada la timid iyadoo ilmo wadata. dadkii bay ku tidhi ilmaha ninka iga dhalay ma taqaanaan? maya noo sheeg. Jurayj baa iga dhalay bay tihi, sheekhaa iga dhalay bay tihi. walciyaadu billaah. ninkaad sheekha u haysataan ayaa ilmahan iska leh. magaaladii oo guuraysa u timida miskiinka, aqalkii baa laga soo saaray, carishkii baa laga dudumiyey, isagii baa dhulka lala dhacay. daadna markaasuu leeyahay mar keliya war maxaa dhacoo la ii dilaya, maxaan sameeyey? markaasaa lagu yidhi waxaad samaysay ma ogin? ma ogi. naagtanaa kuu timiday, waad ka zinaysatay, ilmahanna way kuu dhashay, maad inkiraysaa? markaasuu le ilaahay baa igaga sarreeyo anugu waxa ma samayn. iyadii baa la keeno oo le weliba soo taagan oo le maanaad idafiraysa oo maku hor joogaaye. arrintaa bal ka warrama, soo khatar maaha? ilaahu hana fidnayn, aamiin dhahada. subxaan allah. markaasuu hal mar keliya meeluu ka badbaada ma jirto. naagtii baaba la hor keeno kule sheekh waas naqaanaaye. markaasuu hal mar keliya yidhi waay ilmihii yaraa mee waa kan, halkaa ilmaha ii soo dhiga buuhi, ilmaha halkaa ii soo dhiga. dacuunii usallii, dacuunii in yar idaaya buuhi han tukadaya. telefoonkiisaa dhacaya isaga, keenu maanta ka warramay innaka insha allah keenuna u dhacaya insha allah dhahada. idaa sa'alta fas'al illaah waida istacanta fastacin billaah. Jurayj ilaahay buu baryay markiiba, yaa rabbi waan gafay buuhi, anigu waan gafay, waa run, hooyaday waa ku gafay, waa imtixaanku halkaa bay kaga socdaa, laakiin adig iyo aniga xidhiir fiican baa naga dhexeeye, maanta ii gargaar buuhi, waad arkaysaa dhibtaan ku jire. allahu akbar. munaajaat. tacaraf ila allahi fi rakhaa. barwaaqada ilaahay ku garo, maalintay dhibaata kugu dhacdo ilaahay kuu soo gurman doona adigane. innagu maanta waa bilcagsi. maalintay barwaaqadana dadkeennu badana way qooqaan oo ilaahay way iloobaan. maalinta la qabtana waxay dhahdeen culumay noo soo duceeya, casharka iyo akhriya. maalinta barwaaqadana maba soo eegayba masaajidka, xagga culummada u soo leexan maayo, xagga siyaasadda iyo qabyaaladu miri ayuu maaragtaan ayuu shidi. maalinta la yar qabtay keliyuhu fadhiistaan, ama dhiikar lagu sheego, ama macaan lagu sheego, ama qareer lagu sheego, ama dhanaan lagu sheegana miskiidku imano casharka iyo akhriya buu odhan, sheekhay casharka iyo akhriya, xaaladdu ma fiicna ii soo duceeya. marka barwaaqada la rabaa ilaahayna xidhiidh fiican la sii yeelati.
salaadii markuu ka baxay buu yidhi ayuu ilmihii yaraa u tagay. ilmihii yaraa waa ilmo sabiyu hadda dhashay, calooshuu ka muday baa la yidhi, saasuu gacanta caloosha ugu tuujiyey. markaasuu yidhi yaa ghulaam, ilmahan yarow. markaasuu yidhi labayk, ayaa ku dhalo aabbaha waa kuma? aabbahay waa ninka hebel hebel la yidhaha adhiga halkaa ku jira ee halkaa reerka halkaa degan ba aniga dhalay buu yidhi. ina allaha calaa kulli shay qadiir. sunnada ilaahay waa maxay? 3 jir markuu ilmuhu gaadhu hadalka bilaabaa, 2 jir wixii ka dambeeya aabba hooyo hadalka kelmad buu tuurtaa. walaakiin qudradda ilaahay waa maxay? ilma xalay dhashay ayaa gacanta intuu ku mudo ilaahay ka dhawaajiyey. 3 reer bani israa'iil buu nebigu yidhi yaraanta ku hadashay, kaa Jurayj baa ka mid a buu rasuulku yidhi. marka barwaaqada ilaahay ku garo, caafimaadka ilaahay ku garo, dhallinyarnimada ilaahay ku garo, amniga ilaahay ku garo, firaaqa ilaahay ku garo. maalinta in yaroo dhibaato adigana kula soo gudboonaato, ka kuu soo gurmanaya ducadaada aqbalaya waa ilaahay jalla wacala.